maanta waa taariikhdu waxay ku beegantahay 1 bisha 9aad ee sanadka 2016 waxaan joognaa xeebta Jazeera aniga iyo madaxweynaha mustaqbalka iyo asxaab badanba waxaan kula kulannay madaxweynaha mustaqbalka isagoo dabaalanayo mudane Xaaji Ibraahim Wargale waxaan rabnaa asxaabta in badan inaan la wadaagno farxadna ay noo tahay in maanta aan waraysi la yeelanayno madaxweynaha mustaqbalka mudane Xaaji Wargale bal ku soo dhawo horta barnaamijka damaashaadka iyo dabaasha maalmaha Khamiista iyo Jumcada aad iyo aad baan u dhawahay mudane damaashaadka iyo dalxiiska maalinta Khamiista magaalada Muqdisho aad iyo aad aan u dhawahay mudane madaxweynaha mustaqbalka maadaama aad tahay dad badan oo su'aashaas weydiiyay maxaa ku dalbanaysaa mustaqbalka ma hadda wax ka qabatid ma aragtay wali dadku dhahayo niyow waan macnaha ii sheeg waan qabtaa danaha waa ka shaqeeyaa dadka masaakiinta ceelasha waa u qabaa ما فضلت رفيق المعروف ويفرد معروف وقت التايم وقت كسته وحين الوقت كسته يفرد تقطعه يقطعه الوقت قاعد معناها هذه كل أساس الدراي معناها وحالي احترام النظام الجميع بالمسؤولية لي أفضل معناها بالمسؤولية وحتى أنا وقت كانوا قبضوا وهو كلوا عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته معناها أفضل مسؤول بيها ومسؤول كيا نفسه كفعل مسؤول كيا افرض هبل ما ما جبت ووصل جوه ودك صباح والله هذا يقول استحق Soomaaliya aad waxa uu rajeenaya inaan Soomaaliya waxa uu qaban doono doon asxaabta Facebook ga su'aalo badan ay soo weydiin oo ay dhaheen hadii aad la kulanto in madaxweynaha mustaqbalka weydii waxay dhaheen madaxweynaha mustaqbalka maxaa ugu yaabka badnaa inta uu taariikhdi waxa ugu yaabka badnaa islaan hooyo Soomaaliyeed oo maxay sheeg shan cunug oo ay dhashay hal goob ku dhintay ayaa ugu yaabka badnaa waana ka tiiraayoday إنا لله وإنا إليه راجعون عليها مدام أنا مدحونا مستقبل الصومالي عرض آدي تابطي لكن أنا أقول يا أوكي محاك وقصل بدنا إفرني وأسيف العسكر معناها إيش واحد ونلعب كاس حتى ما هي واحد معناها إيش هذا واحد يقول فرحة بنات دور الشركة على الصومالية لو كل الله يتوكل سبتمبر توكل سبتمبر لو كل الله يتوكل وهذا كذا بس ما في mudane maadaama ay daawanayaan in malaayiin dalka iyo dibadda joogaanba waxa la mudanaha in mustaqbalka madaxweynaha Soomaaliya mudane Xaaji Ibraahim Wargale dabaal ma yaqaano xeebtiin waa joogtaa bal asxaabta ma hadda ilaa dabaal ma hadda fulay waa macnaha madaxweynaha mustaqbalka hadda aan noqdo waan rabaa marka waxa diidlaa meesha ku dhigtaa marka meelaha la waxaan rabaa inaan akibi cabar rabaa nafta waa jeclaa macnaha ii sheegnaan meelaha ciyaalka la jooga jeclaa okay midada kale ciyaal xaafadda waxay leeyihiin daan mudanaha wuu shidan yahay gabdhihi dhan wada aruursada way ku soo dhaleecinayaan maxaa dhiilada iyaga madaxweynaha mustaqbalka haduu haminayo ceebna macnaha uu leeyahay oo macnaha ii sheeg dad mucaarada ku noqonaya gabdhihi shidnaa xaafadda madaxweynaha aruursaday leeyihiin oo mustaqbalka maxaa dhiilada ciyaalka xaafadda ma hadda ciyaalka xaafadda waa ciyaalkii hadda ilaa wax ka sheegay ma rabo way shidayiin ayaga marka way shidayiin marka taasna waxaan ku soo gabagabeynaa waraysiga aan la yeelanay madaxweynaha mustaqbalka mudane Xaaji Ibraahim Wargale waxaan idin la socodsiinaa anoo Rafiiq Xasan al-Macruufa sidaas iyo barnaamijkan mid la mid ah damaashaadka iyo dalxiiska ee Khamiista iyo Jumcadana inta ayuu noogu ogyahay maasanta aad iyo aad